waxaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wafdi ballaaran uu hogaaminayo waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka duqa magaalada Berbera xildhibaanaha uqaaliya bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Berbera ugu dambeynna madaxweynaha Soomaaliland waxaa loo galbiyay qasriga madaxtooyada ee ku yaala magaalada Berbera qasasho kadib waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame isagoo ku hadlayay afka madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha amuraha uu salka ku hayo iyo muddooyinka uu ku sugnaan doono madaxweynuhu magaalo xeebeedka Berbera madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Berbera xarunta gobolka Saaxil madaxweynuhu isagoo gudanaya hawl maalmeedkiisa shaqo isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya waxay saaka hiirtii hore ka soo kicitimeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa tan iyo intii madaxweynuhu uu ku soo jiray safarkiisan magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa inta u dhaxaysa waxa ku qaabilayay dadweynaha deegaamada iyo magaalooyinka kala duwan ku yaala eeriyada dadweynaha deegaanka ayaa madaxweynaha ku qaabilayay soo dhaweyn aad u sareysa waxayna ku soo dhaweynayeen calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan madaxweynuhuna isagoo ka dareen celinaya soo dhaweyntii diiranayd ay ku qaabilayeen dadweynaha deegaanadaasi wuxuu la qaadanayay socod luga oo ku maray gebiyahaanba goobihii lagu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha iyo waftigiisa oo imika ku sugan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera waftigan madaxweynaha iyo safarkiisani wuxuu daaran yahay inuu madaxweynuhu u kuur galo xaaladaha kala duwan ee deegaamadan iyo gobolkan ka jira sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu dirsayaa dadaalka horumarineed ay xukuumaddiisu ka wado deegaamada guud ahaan deegaamada Soomaaliland gaar ahaan deegaankan imsaaka joogno madaxweynuhu wuxuu dardargelin doonaa hawlihii horumarineed ee halka hore uga socday waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadweynihii kala duwanaa ee tan iyo saaka madaxweynaha soo dhaweynayay maamulada tuulooyinka degmooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil kan degmada Berbera iyo maamulka dekedaha Soomaaliland ee halkan fadhigoodu yahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin bahda saxaafadda Soomaaliland ee ka howlgasho gobolka Saaxil isku soo wada duubo waa markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi tan iyo intii uu qabtay hoggaanka dalka uu soo gaadho magaalo xeebeedka Berbera xarunta gobolka Saaxil waa Xamse Axmed Ciid Xamse Garaad telefishka caalamiga Somali Cable xarunta magaalo xeebeedka Berbera